واي ان افين ان maanta baraha bulshada waxaad ku faafiseen sawiro aad u gilgilay baraha bulshada oo farta malab darsanayeen halka mas'uuliyiinta qaar kamid ah macaaradka iyo dabcan shacabka Hargeysa ay ku faafinayeen sawiro ay fartooda dhexda ka qaninayaan runtii waa laba dareen oo iska soo horjeeda en sawiradaasi ma waxay idila muuqdeen inaad bulshada iska jeedisaan mise wuxuu ahaa dareenka dhabta ay jira horta waxaan ku sheegayaa dareenka dhabta jira markaan ilaa xala ilaa saaka aragnay jamaahiirta iyo taageerayaasha iyo dadka xisbiga kulmiye iyo kuwa aan ahaynba u riyaaqsan hogaaminta maanta talada dalkan taalo iyo maamul wanaaga dalkan ka dhacay iyo sida waxa way qarannimadii u socoto iyo sida maanta hogaamiye loogu kalsooni badan yahay qaranka uu hogaaminayo ayaanu anagu iyo madaxdii xisbiguna inaanu la dareen noqono ay nala noqotay sida darteed baanu maanta ugu qiyaasaynay asalka oo Carabigana de malabku af Soomaaliya asalkuna waxa weey in aanu ku qiyaasna maanta qaranku halku marayo in cadowga laga guuleystayna ay tahay in waxa weey maanta malab in la leefa ay tahay oo difaaci qaranka iyo loo soo maray maanta Soomaaliland la haysto guurihii xisbigu gaaray oo maanta waxa weey iyaguna muuqda ballan qaadiyadii xisbigu qaaday oo iyaguna wada fulay waxa soo dhan baanu maanta markaa uga dhignay ujeedka farta malabka u dartay de malabka wax ka macaan ba jira malabka wax ka macaan oo ka sii macaan oo maad garanaysaa maanta la yiraahdo waxa weeyaan waxaas malab ka sii macaan qofku ha sii ma jirta la yiraahdo maad garanaysaa de marka waa halka ugu dambeysay way marka kulmiye macaan miya de ma taladii dalkan kulmiye ku hogaaminayay iyo qarannimadii halkay maanta maraysa ayaa halbeegeegu maanta malab yahay way dhawaan bad adigu ku soo beertay xisbiga talada dalka ee kulmiye oo dabcan ma kamid ahayn mas'uuliyiintii madaxweynaha dhisay 2017 dad badan waxay u fasirteen dadkan farta malabka daraya inay yihiin dadkii madaxweynaha u codeeyay adu madaxweynaha uma codeeyay maxay tahay sababta farta horta waxaan ku sheegayaa madaxweynaha ama u codeey ama ka codeey ama ha u codeynin maanta qarankii halku marinaya way today maanta halku marinaya oo 4 sano maanta ay taagan tahay 2017 November qaranka Soomaaliland halku maraya waxaynu qaranka ku aaminaa oo maanta Soomaaliland aan ku aaminaa ninka xisbigiisa gaarsiin kari waayay isagoo isku haya inuu doorasho madaxtooyo gal ku baayac mushtareeyay makaas waxa way Soomaaliland waxay kala dooranaysaa horeyna u kala dooratay waa hogaamiyaasha way marka maanta waxa way nin madaxweyne Muuse maalinta ka codeeyay iyo nin aan u codeynba waxay Soomaaliland maanta arkaysaa hogaamiye adag oo qarankii isagoo isku wada way Cabdi Naasir wax cadeena miyadu haysan Cabdiraxmaan Ciro xaraash xisbiga wadani waxa ku cad xisbi marka lagu tartamayo qawaaniin baa jirta jideynaysa qaabka loo tartamayo mid maqashay isagoo lacag shubayo tartamayo oo sinfigiisii u geeyay gudidii qaban qaabada shirkiisa meel haysaado waa su'aal ma haysa waa ma yeesho marka waa de taan sheegay number way ku tartamaya maanta oo marka halka la isla tago cod inta la qaado la yiraahdo waa laga badiyay de nidaamkeenu samaysanay noqon lahayd laakiin iyadoo check la sii kala qorto la kala iibsado nootaay la sii kala qorto waa la tagayaa meesha